بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشر كي أفراد كتاب كي سفينها عشر كان نوحان كبلاب دونا مانتي شروط كد حيسة وسادة يقوبيسك انت بدن لبدو دبا اي كد حيان فصل كان وحو كلا ساريا wixii soo socday iyo waxa hadda aan galayno shuruudul wuduu'i weesada shuruudeedu waxa la mid ah iyo wal ghusli qubayskaba shuruudiisu inta badan waa isku la mid shuruudan qubayska iyo weesada labadaba maadaama aan ka soo sheekaynay mid kasta shuruudda laga rabaahi 10 way 10 shardi laga rabaa shardiga kood muxuu yahay al-islaamu islaamnimad way ruuxa weesadan weesaysanayaahi waa inuu muslim yahay ama qubayska waajibka ka qubaysanaya waa inuu muslim yahay haddii uusan muslim ahayn qubayskaas ama weesadaas waxba kama jiraan oo waxa weeye hadduu qubays waajiba gala hadhow markuu soo islaamo waa qubaysanaya ruuxu qubays waajibuhu qubaysanaya wixii hore qubaysan jiro dhan looma ictibaaranayo watamyiizu wax kala sooc weeye qofkaani inuu yahay qof wax kala garanaya oo caqligiisu joogo oo keligiis wax cuni kara keligiis wax cabi kara keligiis isdabari kara al raba inuu yahay caruur yar oo saqiirahon waxba kala soocayn weesa kama ansacdo nin weyn oo maaragtay qof waalan ah qof weyn oo waalan oo maskaxdiisu caadi ahayn oo caadi u waalanna weesa kama ansacdo iyo qubays midna maxaa yeelay waa labadooduba maaragtay yacni waa waalan yihiin kama ansaxayaan wannaqaa'u iyo qalalnaasho weeye daahir ahaasho ama nadiif ahaasho canil xaydi caadadii iyo wan nifaasi dhiiggii dhalmada ay gabadhu nadiif ka tahay oo waxa weye weesadii haddii la joogo gabadha waa inaan dhiiggii caadadaana aysa qabin dhiiggii umushana aysa qabin ayadoo caadadii qabtana weesa kama ansaxdo ayadoo dhiiggii umusha ku jirtana weesa kama ansaxdo qubayskii soo haray markii qubayska aan ka hadlayna waxa weye wannaqaa'u inay ka qalalantuu ka dhammaaday weye caadadii iyo dhiigga umusho markii ay ka dhammaadaan oo dhiigga umushuna dhammaado kan caadaduna dhammaado ayaa qubayskii ansaxaya markaasaa qubayska ansaxaya laakiin dhiiggii caadada ahay oo socda qubays waajiba ma ansaxayo kii dhiigga umushoo socdana qubays waajiba ma ansaxayo laakiin macnaheedu maaha gabadhu inaysa qubays oo dhan qubaysanayn qubayskeeda kale nadaafadeeda wixii dhan wadanaysaa laakiin qubayska niyada ay ula imaynayso waajibka ah ee cibaadada ahi wuxuu ansaxaya markii ay dhammaadaan dhiigyaalkaasi wacamaa shay xaggiisana qofku inuu ka qalalan yahay ka nadiif yahay weeye yamnacu diidaya shaygaasoo yamnacu diidaya wusuula almaa'i biyaha gaaritaankooda ilal basharati jirka ay gaaraan wax allaala wixii biyaha jirka inay gaaraan ka celinaya qofkaasi inuu ka nadiif yahay wey aaday u fara badan yihiin maantay wixii biyaha ka celinayo dhan haddii weesadii la yidhaahdo iyo haddii qubayska la yidhaahdaba wax kasta oo biyaha kaa celinayaahi waa inaad nadiif ka tahay tusaale waxa weeye saacad kugu dhegana kuu xiran oo dhab kugu ah oo biyihii aysa gaareen ama waxaa kugu dhegan faraati kugu dhegana kuu xiran oo aysa biyihii gaareen gacanta ama waxaa gabadhii u xiran silsiladii dahabkii iyo waxbaa u xiran iyo fida waxay tahay ama dhalinyaradu waxyaalaha caagaga iska xirtaanoo waxbaa oon qofka gacanta ugu xiran waxaasoo dhan waxay rabaan ha noqdeen wax kasta oo ku xiran ee meesha ku dhegan ee biyuhu aysa gaareen laba maadamida lagaa rabaa inaad siibtid markaad meeshaas dhaqaysid ama qubays ama weys ha ahaatee iyo inaad dhaqaajisidoo markaa meeshaan mayraysid meeshaan inta ka dhaqaajisidoo mayrtid haddana kusoo celinaysidoo meeshii kale ku dheganayanna aad ka daba mayrtid haddaada marka dhaqdhaqaajin aadana siibin ee ayagoo meeshooda ku dhegan ku weesaysatid weesadaas wax kama jiraan qubayska waajibka hod samaydana wax kama jiraan waxaa la mid a cidiyaha maanta la gashadoo dheerdheer oo dadku isku dhejiyaan weese iyo qubays midna kuma ansaxo haddii cidiyo dheerdheer qofkuu leeyahay ee wasaqi ka hoos gasho ayadana sidoo kale wey hadda maanta waxaa la xiranayaa indhihii baarar oo feegahoo been abuura iyo yacni sunniyihii iyo wax feegahoo been abuura waxyaalahaas la isku dhejinayo dhan qofku
oo uu isticmaalayo weesaday diidayaan lama ogola. haddii oo waxyaala dumarka qayb ka mida ilmaha iskaga celiyaan isku dhejiyaan korkan qubayska waajibka u diidaya hadday meel garabkii iskaga dhejiso waxaasoo dhan marka wax la ogolyahay maahan. kulli waxaasoo dhan qubayskay mancinayaan. qubayskaagina ma ansixin haddaan qubayskaaga waajibka ansixin ama weesadaada ansixin cibaadada wax kama jirto. marka isku soo duuduub wax kasta oo weesada ama qubayska waajibka jirka ka celiyahay cibaadada eber ka dhigayaan. waxaa muhimo meesha isxusuusi mudan gabdhaha markii la aroosaya habeenka arooska oo kale ayaa waxaa laga yaabaa waxyaalaha lagu buufiyo berberiqa anu magacooda ma aqaane waxyaalahaasi jirkii ku dhagayaan. waxaa laga yaabaa dhowr beriba inay jirka ku dhagan yihiin ee ay maaragtay gabadhii ay weesadiina gaarayn qubayskiina aysa gaarayn ma ansaxayso. waxaas in iska fujiso wey gabadhu. taas waa qodob waa wixii biyaha jirka ka celinaya. wa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin cala alcudwi xibinka korkiisa maa yugayiru lmaaa biyaha wax badalaya wax biyaha dhadhankooda ama midabkooda ama urkooda badali karaa waa inaysan jirka kor saareen. haddii jirkaaga ay saaran yihiin wax biyaha badali kara maalanba cilaana ku yaala ama nuurad ama rinji ama wasaq ama waxun a jirkii kugu dhagan waxaasi markii biyaha ismarididna midabkii o dhan isbadalaya waa inaa marka hore iska mayrtid. waxaas marka iska mayrtid kabacdi aweesadii ama qubayska ansaxayaan dhib male. laakiin kalarka meesha ku haro gacantii gabadhi cilaankii ama xinihii markay marsato waxyaalaha midabka aho meesha ku haray wax dhiba maleh wax dhiba haba yaraatay maleh. laakiin inta kale biyaha oo isbedelo wasaqda camal ah oo hooraya rinji nuurad waxay rabaa noqdee waa in waxaas qofku markuu iska mayra. laakiin haddii qofka ka waran saliid u marsaday ama kareen u marsaday kareenkaas iyo saliiddaasi biyihii ma bedelayaan. laakiin markuu qofku ku weysaysanayo ama uu qubaysanayo sibiq sibiq weeye jirkii dhib male haddii biyuhu jirka si toosa u gaaraan. sibiq sibiqdaas kareenka iyo saliiddu wax dhiba maleh marba meesha biyi hadday gaarayaan maadaama aysan bedelayn biyihii dhadhankooda ama midabkoodi. laakiin kareenku hadduu yahay kareen badan ee biyaha marka ismarididoo horeba biyihii ay bedelmayaan taas waa eber wey. laakiin kareen yar oo kugu dhagaa ismarisay oo ku baaba-ay jirkii ama saliida ismarisay ama subag waxa rabti dheh waxaasoo dhan sibiq sibiqda ahay dhib male hadday biyuhu jirka gaaraan. walcilmu waxaa qasabaho shardiya qofku inuu og yahay bifardiyatihi weesada ama qubayska faradnimadkiisa mid kastoo ka mid a faradnimadkiisa waajib inuu yahay. yacni markaa weesaysanaysid waa inaa ogtahay weesadaani inay waajib tahay qubaysku inuu waajib yahay waa inaa ogtahay. haddaa iska qubaysatid ka waran maalan ba qofaa dhalinyaro ahaa ayaa qaangaaray wuxuu ku qaangaaray waxaan soo sheegnay gabadh dhiiga ku dhacay ama qubayskii wiilkii biyihii shahwadii midkooda helay bas markuu shahwadii isku arkay ama gabadhi dhiiggii koowaad uu ku dhaco hadhay koga ayaa qofkan wuxuu is yiri alla waxaan ka qubayso mana oga in qubaysku uu waajib yahay oo qasaba. laakiin waxaan iska nadiifiyo ka qubayso is yiri qubayskaas ma ansaxayo. hadduu raba ha niyeysta qubayskan qubayso is yiri mar hadduusan waajib inuu yahay ogeyn ma ansaxayso. weysadii oo kale qofku inay waajib tahay hadduusan ogeyn ma ansaxayso. walaa yactaqida ruuxu waa inuusan aaminin fardan rukni ama tiir oo min furuudihi labadooda mid kastoo ka mida weesada iyo qubayska tiirarkiisa mid kastoo ka mida waa inuusan u aaminin sunnatan sunna waa inuusan u aaminin. oo waxa weeye haddaad tiraahdid ka waran wejiga in la dhaqaa waa sunno aad tiri ama waxaa tiri jirka dhambiyaha in la kala gaarsiiyo qubayska waajibka waa sunno ama waxaa tiri niyadu waa sunno waxaba kama jiraan. waxaaga waa inaadan waajibaadkii mid ka mid ah aadan aaminin inuu sunno yahay. walmaau biyihii aطahuuru kuwa wax dahira waa inay yihiin. biyihii waa inay yihiin kuwa wax dahira ee haddii biyahaas aysan kuwa wax dahiraya biyo najaasoobay wax ma taraan kuwa la isticmaalay wax ma taraan. maalan ba waxaan soo niri madhabkeena shaaficiyada haddii qofku waal yar biyo uu kusoo shubto ee biyihii gacanta u darsado wejiga ku shubto biyihii ku hooraan wejigaad ku mayranaysaa gacniha ku mayranaysaa oo hadda masaajida dadku waa sameeyaan ayagoo haddana sheeganaya inay shaaficiye yihiin. qofkii aaminsan inuu shaaficiye yahay ee sidaas u weysaystaa ee biyihii ay uga daataan meeshaas weysadiisu waxba kama jiraan shaaficiye agteeda. hadduusan shaaficiye ahayn madka kale uu yahay ha bartaana ku dhaqmo. waa yahay qubayskaa soo haray. qubayska laftigiisa biyaha haddaad baaldigii biyihii ku shubatid ee aad ku dul qubaysatid oo markaa qubaysanaysa biyihii jirkaa ku dhacood ismarmarinaysa ay ku daataan baaldigii da biyahaas mustacmal wey. marka iska foge biyaha aad ku qubaysanaysid yaysan kaa gaarin biyaha aad ku qubaysanaysid
jirkaaga markay ku dhacaan kabacdi yaysan kaa gaarin weelka biyaha aad kasoo qaadqaadanaysa ay kugu jiraan. baath aaba jiraba maanta baathkii weelkii bahalkii barkadii yareedoo suuliga ku taalloo dadka suuliyada waaweyn haysta haddii qof inta biyo ka buuxsado ninkii xaaskii mid ka mida uu ku dabaasho ee kii kale uu biyihii u daayo oo kii kalena ku dabaasho oo uusan biyo kale iska raacin, kuwaasi ma gali karaan, qubays waajiba ma geli karaan biyihii yaraay oo dhan. marka yacni biyaha haddaysaba ahayn biyo badan oo 190 litar ka badan, biyo qof isticmaalay waxba kuma galaan. kuwa biyaha kaa hore ku daataano yar waxba kuma galaan. marka inaa ilaashata wey. addahuur waa biyaha naftooda u daahira waxna dahiri kara. labadan shardi oo soo socotaahi dadkoo dhan uma yaalaan, dadkoo dhan uma yaalaan, waxay u yaalaan qof xanuunsan. wa dukhuulu lwaqti waqtigu inuu galay ayaa shardiya. maalan ba waxa weeye dadkii dad xanuunsanaa jira waayahay, iyo walmuwaalaatu in la xiriiriyo weesadii iyo in la isdaba dhigo lidaa'imi alxadathi qofkii xadadkiisa uu joogtada ahaa, weesadii qubayska in la isdaba dhigo. tusaale waxa weeye qofka kaadida aan cisho karin, qof ayaa kaadidii aan cisho karin oo ay iska socotaa, ama gabar ayaa dhabar furan qabtoo dhiigga uu iska socdaa. haddii qofka wax ay iska socdaan waxaa qasab ah in hal mar weysada uu inta boobsiyo. horta waqtiga inuu galo waa inuu sugaa, waqtiga inuu galo waa inuu sugaa kow. haddana waqtiga inuu galo markuu suga kabacdi waxaa qasaba inuu hal mar israacsiiyo wixii uu sameynaya weysadii boobsiis ah. laakiin qofka caadiga ahi waqtiga ka hor weysaysan kara. maanta duhurka 2 saac kahor intuu sii gelina weysaysan kartaa. saaka weysada gurigaaga uga baxday aad duhur ku tukan kartaa qofka caafimaadka qaba. sidoo kale qofka caafimaadka qabaahi inta weysaysto wejigii gacnaha dhaqdo, wejiga dhaqdo, gacnaha dhaqdo, madaxa masaxdo oo hawla qabsado uu hadhow lugaha mayra karaa, waa kala goy karaa sida fiican. laakiin in la isdaba dhiga wey. laakiin haddii qofku uu xanuunsan yahay ee kaadidiisu iska socoto, uu qofku wax isku xirxirayo, is ilaalinayo, waqtiga markuu galo sugaya, hal mar weysada boobsiinaya, oruu ka tukanaya. waxaa soo gelaya xukunkaas la mida maalan ba dadka xanuunsan oo isbitaaladii yaallo kataytarada iyo ay ku jiraan oo kaadidii bahashaas looga qaadayo, haddii wixii ay iskaga diliq leeyihiin oo najaasadii wax iska socda ay tahay oo kasoo baxaysa meeshaas, yani haddii xibinka taranka wax uga jiraan oo ay halkaas uga diliq leeyihiin, wuxuu noqonaya qof noocan oo kale. marka waa inuu si boobsiisa inta loogu weyseeyo oo markaas ku tukada. waayahay, faslu lidaa'im alxadath waxaan soo niri waa qofka xadadkiisa iyo uu joogto yahay ee wixii ay iska socdaan oo aysa kala go-in. hadda waxaan ka hadlaynaa weesada waxyaalaha buriya. si fiican u fiirsha meeshaan. masalada weesada burinteeda soomaalida wax badan khilaaf iyo dood iyo dhibaata ka dhex jirta. laakiin dhibaatada iyo waxa keenaya waxa weeye dadku waxa ay sheeganayaan iyo waxay aaminsan yihiin kala duwan. masaa-ishan aan ka hadlaynaahi ee weesada burisaahi madhabka shaaficiyada wixii weesada buriyo wey. qofkii marka shaaficiya hawshan waa u taallaa. qofkii aan aaminsanayn madhab oo 4 madhab midna aan aaminsanayn, hadda waxba xaqa uma sheegi karno. qofkii madhab meeshuu raba ka qaatana waxba kaasna allah u naxariisto. midkii madhab kale aaminsanyna hadda wuxuu aaminsan yahay ku dhaqmo. laakiin qofkii aaminsan ee wadaadadu u sheegaan inaan shaaficiye nahay, shaaficiya sidaanay qabtaa. marka waxaan kaloo isku eed lahayn. haddii mas'ale la sheego maalan ba waxaa imaan doonta xaaskaaga weysada kaa jebisa, shaaficiya qabta soo maha. madaahibta kalena inaysa kaa jebinay qabaan qayr ka mida, yani ilaa shuruud shahwe iyo waxyaalaha. haddii qof marka uu aamino in xaasku weysada ka jebiso hala dirir, because madhab u haystaa. haddii madhab kale qof ah oo maalan ba waxaa aragtay qof carabtaas kale oo ama eeshiyaanahoo xanafiyahoo igama jebisa qaba, hala dirin oo hadna dhihin hadduu yiri xaaska weyse igama jebiso. yani qofku haddii uu madhab saxa haysto, madhabkiisana uu ku dhagan yahay, falaa lawma caleyh, bal waajibay ku tahay inuu saas ugu dhaqmo. laakiin qofkii asagu hadba meeshuu derbi ka dhaco, dadka yuusa eedayn, asaga cibaadadiisa fasahaadinaya, yuusa qofna eedayn. nawaaqidul wuduu'i weesada waxyaalaha buriyahay 4 ashyaa waa 4 shay. alawalu kan koobaad, alkhaariju waa wixii ka soo baxa min axadi sabiileyni labada wada midkood. labada wada midkood ay ka soo baxaan, yani meeshii kaadida ama meeshii saxarada ka soo baxaan. wax allaala wixii labadaas wada midkood ka soo baxa ee aan ahayn masalada soo socota, weesada waa buriyaan. oo min qubulin xaggii qubulkii oo xaggii hore oo kaadidu ka soo baxda, rag iyo dumar waxay rabaan noqdeen,
aw duburin ama xaggii dambe saxrada wixii kasoo baxa weese waa buriyaan. riixun dabayshii oo aaryadii dhuusadii wixii ah weesada ay buriyaan. aw hayruhu ama wixii kale saxaradii kaadidii xataa wax qalalan hadday kasoo baxaan waxa weye waxaasoo dhan weesaday buriyaan. ila almaniya biyihii manida ahaa maahan oo biyihii manida ahaa hadday qofka kasoo baxaan weesadu kama burayso. sidee ku dhacdo qof weese kasoo biyo maniya kasoo baxeen inaan weese ka burin? see ku dhici kartaa? waxay ku dhici kartaa qofkani maalan ba waxaan u tegi doonaa qofku haddii uu inta fariisto salka si fiican dhulka u dhigo uu isagoo fadhiyo si saxa u fadhiyo ku hurdo weesadu inaysan hurdadaasi weesada ka jabina noo imaan doonta. marka sida asagoo u hurdo hadduu qofka isku qarwo maalan ba ninka inta isku qarwo biyo maniya kasoo baxaan biyahaas maniyo kasoo baxay weesadii kama buriyaan. hurdadiina hadda weesada kama burinoo salku si dheef dhulka u hay. marka manidii weesada laakiin mani oo nin xaaskiis u galmooday taas waa hawl kale taas laga hadli maayo. athaani kan labaad ee weesada buriyaahi zawaalu lcaqli caqligoo taga wey. wax kala sooci tamyiizkiya qofka ka taga caqliga ka dhalanaya. zawaalu tamyiizi annaashi min alcaqli caqliga ka dhalanaya oo ah binawmin hurdu ku taga waa seexda qofku aw hayrihi ama wax kale ku tago waa waash ama wuxuu ku tegay yani koomo galo waa suux. marba hadduu qofku koomo galo suuxo ama uu waasho ama uu hurdo saxa hurdo weesadiis waa burta. alcaynaani wikaau sahi faidaa naamat ilcaynaani istadlaqa lwikaa aw kama qala sal ly slam. yacni labada hurdo waxay xarig u yihiin dabada. haddii marka qofka uu hurdo xarigiyaa tegay marka inuu aarya kasoo baxday inaysa kasoo bixin waxba kama oga marka weesadii waa burta. waayahay ilaa nawma qaacidin marka laga soo reebo qofkii hurday yani qofkii fadhiyey hurdadiisa marka laga soo reebo kaasoo mumakinin si toosa u dhigay maqcada tawsalkiisa min alardi dhulka yani min maqarihi meesha uu ku sugan yahay laga wadaa. dhulka hadda waxaa laga wadaa meesha uu fadhiyo. hadday rabta haato diyaarad korkeeda kursi ah, tareen korkiisa, bas korkiisa, gaari korkiisa, geed korkiisa, guri korkiisa, meesha rabta noqoto dhulka aato. yani min alardi waxaa laga wadaa meesha uu fadhiyo. maqcadana waxaa laga wadaa salkiisu si taxa dhulka u dhigay. qofkaasi qof aad caata ahna ma ahan, qof oo aad u cayilana ma ahan, qof iska dhexdhexaada wey. salka hadduu si fiican dhulka u dhigo ee uu ku hurdo oo maalan ba uu gaari saaran yahay kursi adag uu gaarigii saaran yahay gaarigii intuu safarka ahay hurde hurdadaasi wax dhiba weesadiisa ma u keenaysa hadduu toos uusa qofku isqalloocin. waayahay safaruu ku jira diyaaraduba saaran yahay kuraastiina waa kuraas adag salkuu ku hayaa waa hurda asoo si toosa u fadhiya oo salka ku haya weesadiisa waxba kama biin hadduu hurdo hadha waa ku tuka karaa. ilaa nawma qaacidin mumakinin ilaa nawma qaacidin qofkii si toosa u fadhiyey mumakinin salka makaniyey mumakinin si saxa u dhigay oo makaniyey maqcada tawsalkiisa min alardi dhulka si saxa u dhigay maqcadahu min alardi ama maqcada kitaabkan is qoray min alardi ay min maqarihi meesha uu ku sugan yahay laga wada. waayahay waxaa marka daliil u ahaa asxaabta rasuulka alayhi salaatu wasalam xadiis watuwa asxaabta rasuulka ayaa salaada sugaya ilaa xataa takhfiqa ru'uusum ilaa madaxyadoodu ay iishaan saanoo kale inay u hurdeena aimadu ku fasiraan. masalada ku xigta waa masalada muhimka ah oo ugu dooda badan dhibaatada iyo khilaafku ka jiraan aan marka hore marno. athaalithu masalada saddexaad ee weesada burisa iltiqaau basharatay rajulin nin iyo wamra'atin haweeney labadooda jir inay kulmaan wey oo istaabtaan. kabiireyni nin iyo naagtaasoo laba qofoo waaweyn ah ajnabiyeyni haddana aan wax qaraabo ahayn min hayri xaa'ilin wax kala xiga iyadoo aysan jirin istaabtaan. masaladan waxa weye soo gaabinta ninka xaaskiisu weesada ma ka jebisaa xaaskasa ninkeedu weesada ma ka jebiya. madaahibtu waa ku kala duwan yihiin u fiirso maskaxdaada fur cidna hala dagaalamin xaqa u hogaansan xaq qofkii doonaya cidna kuma nibcanaya masalada maxaa yeelay xaqaa sidaan ah. aimada islaamka ku kala duwan yihin xanafiyadu masalada waxbay ka qabtaa maalan ba in oo ninku xaaskiisa uu jimaacaba maahan inaa weesadu kaga burin. maalikiyadu waxay qabtaa haddii uu shahwo uu u taabto waayahay ay kaga buraysa hadduusa shahwo u taaban waxba gama burayaan. shaaficiyaduna waa ka duwanta shaaficiyadu waxay qabaan ninku haddii uu haweeney ajnabiya taabto xaaskiisa ha ahaato ajnabiga waxaa laga wadaa qof uu guursan karo u fiirso aan kala fahano maxram iyo zawja kala jira. zawjku
يعني محرم maahan magaca zawj aa layihahda xaas ninka la qabo xaaska wey marka haweeney uu guursan karo oo xaaskiisu ku jirto iyo kuwa kaleba shaaficiyadu waxay qabaan haddii uu taabto asagay iyada jirkeedu hadday istaabtaan ku talagal ha ahaato ama kama ha ahaato shahwo ha ahaato ama shahwo la-aan ha ahaato ayagoon wax kala xigin hadday istaabtaan labadooduna ay yihiin laba qofoo waaweyn labada qofoo waaweyn laba qofoo xad la damci karo gabadhii qofkii wanaagsanaa uu dhihi karo gabadhan waa gabar la guursan karo hadday rabto iyo sadde ahaan qaangaarin ninkiina uu gaaro wiilkiina xad la isleeyahay waa la guursan karaa wiilkan hadduu gaaro yuusa badde ahaan qaangaarin ayna ajnabi kala yihiin waxna kala xigin weesada waa kala buriyaan madhabka shaaficiyadu saasuu qabaa haddaad shaafici tahay warkaana kuu yaalla haddaada shaafici ahaynood aaminsantahay inaada shaafici ahaynna kuma yaale cidna ha eedayn cidna ha canaanin cidna ha bidciyin cidna ha gaalaysin that's it marka qofkii madhabkan qaba saas wey waay laakiin culummada waxaan rabaa inaan xusiisiyo ilaahay ha looga baqo ummadda haddii culummadii ay yidhahdaan shaaficiyanna ee ay masaladan xagga uga keenaan oo masaladan xagga uga keenaan oo masaladan xagga uga keenaan ee ummaddii wareer lagu rido waa dhibaato marka shiiqa wax iftoonayaahi waa inuu caddeeyo masalada cidduu ka keenay ilaa annagu maana alifan waxna maana qorane diintii qorneeda akrinayna waa inaad tirahdid masaladan madhabkaasa qaba qofkii marka hadhow raba inuu ka bayro asaga oo ka bayro laakiin u kala cadee waxa aa sheegaysid laakiin haddaad tiraha kitaab shaaficiyaan akhrina safiicina akhrina abulhujaac akhrina minhaaja akhrina laakiin meel kale aa ku socotid dhibaataday leedahay arraabicu masalada afraad oo ninka marka masaladaas hore intaana ka tegin waxa ay u daliishanayaan shaaficiyadu waxa weeye aayadda awlaa mastum nisaa ayaa culummadu fasirkeeda ku kala duwan yahay shaaficiyadu marka waxay u daliishanayaan lamsigan inuu taabasho yahay maxaa yeele waxay leeyihiin laamasadan hadda mufaacalaaba hata laakiin qur-aanka ayay ku soo aroortay qur-aanku asaga isfasiraya ereyga lamsiga ah oo taabasho ah falamasuuhu fii qirtaasin falamasuuhu walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin falamasuuhu haddaan kusoo deji lahayn kitaab oo warqada ku yaalay taabo lahayn ilahay leeyahy marka lamsigaas waxay leeyihiin waa taabasho oo shayga la taabto marka saas ku fasireen xadiidkii sayida caaisha laheyd nabiga calayhi salaatu wasalaam lugahan ku horfidsanaya iyadoon gurigu faynuus lahayn oo nabiga qunjinaya markuu tukanayana waxay leeyihiin imaamu shaaficiyo allah ka raali noqdee yacni in oo mara ka xigtay inaysan ka xigin midna ma caddayn mar haddii xadiidku ixtimaal galana masaladan kama qaadanin waayahay calaa kulli xaal a'imada kalena waa inay ahlu xaq yihiin aaminsannahay qofkii madhabka shaaficiyada ku camal falayana masaladan sidan wey arraabicu masalada afraad ee weysada burisaahi masu qublil aadamiyi haweeney qofkii bini aadamka xibinkiisa taranka oo taabatid weeye aw xalqati duburihi ama dabadiisa inta wareega ahoo la taabto bibadni raaxati calaa casha beerkeeda lagu taabto aw buduuni asaabici faraha beerkooda lagu taabto oo waxa weeye inta yani xibinka taranka qof inaad ka taabatid ama maaragtay dabada wareegeeda aa ka taabatid adiga iyo qof kale caruurtaada xataa kaadida iyo saxrada aa ka mayraysa ahaato adoo gacnahaaga wax galoo fisi midna aan kugu jirin oo cad yihiin haddaa ku taabatid intaas isqabata waxa weeye ama adiga iskaga taabo cid kale kaga taabo way kaa buraysaa laakiin haddaad aad intaan kale aadan yani aad dhinac kale ka taabat intaan kaleo kor haddaa ku taabatid dhib male ciyaalka markaa nadiifinaysa hadday wax kaa xigaan oo calaacashaadaas inta isqabanaysa aysa gaarin ayadana wax dhiba male weysadaadi waa kuu jirtaa laakiin najaasadaas faraha kaa gaartay hadhow iska dhaqaysaa weysadii kaama burayso intaasa casharkeena ku koobayna wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu